waxay sheekada socotaba gabadhi sidii ayaa lagu waayay. Sidii markii lagu waayay ayaa ileen aftiyaaladeedii ayay dhaheen way baxday. waxay u tagtay aftiyaasheed, waxay tiri anigu waxaan rabaa dhaxalkaygii ayaan rabaa. Okay bay ku yidhahaan abtiyaaladee. markii abtiyaaladees iskaga hadhay way iska bixeen abtiyaaladee. afartii ay dhashay islaantii maaragtay aabaheed soo guursaday, naagtii aabaheed soo guursaday iyo afartay dhashay way tashteen. labada wiile waaweynaa ugu darnaadaan. markii ay tashteen ayaa waxay go-aan qaateen inay maaragtay gabadhan mashaakil u sameeyaan. gabadhii wuu baxay kii weynaa. markuu baxay ayuu ku yidhi adeeradeed gabadhani nin halkan ku haysta dukaan oo alaabta dumarka iibiya, suwaraadka dumarka iyo maykabkii waxaa iibiya ayay gabadhani saaxiib la tahay. oo ninkaas ayaa habeenkii u yimaada oo wax arkay walaalkayga yar ayaa arkay ayuu ku yidhi adeeradeedna waa ku xanaaqay saasay u degtay meesha miya. haddana abtiyaaladeed ayuu u sheegay uu sidii ku yidhi. abtiyaaladeedna markuu saas ku yidhi suuqii waxaa u geliyey fadeexada suuqi u geliyey ayaa waxaa dhacday in gabadhii haddana loo diido isagii walaalkiisii kale isaga kusoo xigay kaweynii kusoo xigay waxay u diideen inay maaragtay meesha ay dharka kusoo meydhato iyo cuntada yarisooisa meel kale aanay aadi karin oo banaanka dhanba aan meel tegi karin ayaa ay go-aansadeen. markay sas go-aansadeen ayay waxay haddana daba dhigeen walaalkoogu u yaraa ayay daba dhigeen oo isagana yaasir laydhaa. yaasir bay ku yidhaahdeen ilaali markasta oo daba soco. ayaa waxaa dhacday in gabadhii maalin la waayaba. markii gabadhii maalin la waayay ayaa waxaa u tegay adeeradeed abtiyaaladeed adeeradeed iyo abtiyaaladeed ay ku yidhi yaasmiin ma idin timiday. markaasay ku yidhaahdeen yaasmiin annaga say noogu imanaysaa, annagu ku qaylinay oo dilnay say noogu imanaysaa adeeradeed yidhaahdeen iyo abtiyaaladeedba. wuxuu yidhi gabadhii waan waayay. ninkiiba isla baxsadeen kolley. ninkiiba loo tegay dukaankiisi loogu tegay. ninkiibaa la dilay. ninkiibay dacweeyeen oo yidhaahdeen wuxuu xadeen gabadheedii ay meel geystay. ninkii waa la xiday. ninkiiba waxba lagu waayay. ninkiibaa lasoo daayay oo lasoo damiintay. ninkii markii lasoo damiintay ee ninkii lasoo bixishay ayaa waxay sheekadii socotaba gabadhii sidii ayaa lagu waayay. sidii markii lagu waayay ayaa ileen aftiyaaladeedii ayay dhaheen waa kuwii mashaakil ka dhexeeyey, dhaxalkana waa tii la sugayey ama ku lag leeyahay. abtiyaaladeed ayaa dacweeyey maxamed iyo axmed. waa la xiday. markii la xiday waxba waa lagu waayay. ma mashaakil baa idinka dhexeeyey maya bay yidhaahdeen. waxba lagu waayay ayaa waxa dhacday gabadhii saaxiibadeeda maqasho sheekadii iyo wixii la sheegay nin baa la baxsaday. maxaa la baxsaday? gabadhii waa la laayahay. gabadhii asxaabta ahaayeen ee idin soo sheegay inaanay marnaba hadalkii rumaysan oo ay tiri akiid wax baa jira oo gabadhaasi may baxsan. oo ninkeeda oo dharcada u sheegtay inay gabadhaas faamiligeegu dhib weyn ku hayaan, khaasatan ka weyn ee walaalahayna maxamed la yidhaahdo ha ugu darnaadeen, uma kala sokeeyaan, kinkaasi ha ugu sii darnaadeen. xataa waxay u sheegtay maalintaas inay webiga kula kulantay oo dhar meydhaysay oy ku tiri waxaan sugayaa dhaxalkay. oo xataa keligeed may hayn. waxay u sheegtay maalinta ay yaasmiin la kulmaysay gabadhaasi inay gabadh kale la socotay. waxay sheegtay inay yaasmiin meesha keligeed kaga yimaadeen oo iyadii gabadhii la socotay isu soo raaceen oo meesha kaga yimaadeen. oo isaa u sheegtay inay dhaxalkayga sugayso. nin niyadeeda marnaba ku jirin inay baxsato ama inay waxa ay istisho ama dhibaato maaragtay wax dhibaato maaragtay
jira oo ama ay baxsato ama qof ay la baxsato aanay waxaasi marnaba jirin ayay u sheegtay ninkii oo halkaa isku arkeen. ta kale waxay u sheegtay ninkeedii inay dharkii Yaasmiin meesha ay kaga tagtay ee dharkii lagu meydhayay ay dharkii Yaasmiin kaga tagtay, gurigeediina dharkeedii oo dhan yaallo wana wax dhara qaadan. yacni waxay xidhnayd Yaasmiin dharkii ay xidhnayd markaasoo keliya ay wax dhara qaadatay. waxay tiri taasina suurtagal maaha. waxay ku dhahday sheekadan waxa ka dambeeya faamiligeeda oo waayitaankeeda faamiligeeda ka dambeeya, ma rumaysanayo marnaba inay Yaasmiin meel tagtay keligeed. wuxuu sameeyey ninkii inuu askarta u sheego markuu stationkii tegay halkii maaragtay nimankii ay walaalaha ahaayeen dembi loo qabsado oo lasoo qabto iyagoo dhanba oo la yidhaahdo walaashiin xaggeed geyseen caawi walaashiin, oo wax kasta oo lagu sameeyo way sheegi waayeen. markii ay sheegi waayeen haddana kafaalo lagu soo daayo nimankii oo la yidhaahdo magaalada kama bixi kartaan, meelnaba ugama bixi kartaan. wigan gabdhahani dharkan ku maydhayaan ayaa waxa dhacday tuulo uu sii maro in wiil meel dheer oo kor ah uu ka arko qof biyuhu sidaan webigaasi uu meeshii iska soo tuuro siduu qofkan u badbaadiyo. wiilkii nabarba madaxa kasoo gaadhay, markaa wiilkii halkaas ayuu isaguna ku dhintay kiyo raba gabadhaas inuu badbaadiyo. markii saasi dhacday ayaa waxaa loo yeedhay dowladii markii loo yeedhay ayaa waxa dhacday in wiilkii lasoo saaro meydkiisii iyo gabadhaas meydkeedii. labadii qof markii lasoo saaray meydkoogii ayaa wax karta waa la waayey. markii la waayey waayo sababtoo ah gabadhan tuuladan umay dhalan laga helay meydkeega, wiilkan badbaadi islana tuuladan umuu dhalan isna tuulo kalu ka yimiday. markaa waa la garan waayey. wiilkii faamiligiisii ayaa yimiday oo raadinaya. markaa waxaa la weydiiyey, waxay sheegeen inuu wiilkooga yahay. gabadhana waxaa la yidhi gabadhan waad garanaysaan. waxay sheegeen inayna aqoon u lahayn gabadhan. dabcan waqtigaas way adkeyd sababtu qofkan u dhintay iyo waxaas in la ogaado, waayo waa waqti dheer bay ahayd. waxay ahayd 95 weyn waqtigani. markaa way adag tahay in waxyaalo badan la ogaado. markaa waxaa loo diray caasimada ayaa loo diray Baqdaad in lasoo ogaado sababta ay dadkani u dhinteen. wiilkii waa faamiligiisii ayaa ogaaday. gabadhi cid may soo sheegeen, keliya waxa raadisa gabadhaas keliya waxa raadisa gabadhaas ay asxaabta yihiin ayaa warwar ku haysaa gabadhaasi iyo ninkii Yaasmiin saaxiibadeed iyo ninkeedii inay tuulo kasta iyo meel kasta ay ka raadiyaan bal inay maaragtay wuxuun ay helaan. markaa say u socdeen ay u raadinayeen tulooyinkii uga raadinayeen waxa loo sheegay inay gabadhaas saasi jirto. markii sawirkii la tusay way garatay Yaasmiin saaxiibadeed. waxay tiri tan waa Yaasmiin. markay sheegtay Yaasmiin inay tahay ayaa loo sheegay wiil iyo Yaasmiin in meydkooga laga helay webiga laga helay ayaa loo sheegay. markii loo sheegay saas ayaa waxaa dhacday inay walaaladeed Yaasmiin iyo faamiligeedii adeeradeed dadkii oo dhan ay ogaadaan. markay ogaadeen waxay dhaheen wiilkii gabadha badbaadi islahaa ayay dhaheen wuu la baxsanayay. gabadheeda isagaa la baxsaday. waxaan rabnaa gabadheedii magteedii iyo sharafteeda uu meel kaga dhaco. gabadheedii nagala baxsaday uu sharafteeda ceebeeyey ayaan rabnaa. sharaf gudniyaa la yidhaha ma ogi. sharafteeda xaalmarin baa jecla inay tahay xaalmarin
iyo waxaan rabnaa magtii gabadhayada ayay dhaheen. wiilkii dhintay faamiligiisii ayay ka dalbadeen. markay saas ka dalbadeen waxaa iskugu yimid odayadii tuulooyinka ayaa isku yimiday. yaasmiin walaalkeed walaaladeed waxay sameynayaan mashaakil oo waxay leeyihiin magtii iyo sharaftii inanta iyo sharaftii gabadhayada iyo magteedii ayaan rabnaa. marka waqti ayay u qabsadeen, way shireen oo waqti ayay qabsadeen qoladaasi ay siin doonaan magtii iyo maaragtay xalmarinba. kii saas tahay oo dembigii oo dhan reerka korka laga saaray ayaa waxaa dhacday in la ogaado sababtay u dhinteen labadooduba. waxaa la sheegay markii wiilka la badbaadiyey 12 saacadood ka badan inaanu biyaha ku jirin, halka yaasmiin 5 cisho ka badan ay biyaha ku dhex jirtay oo xataa kalluunku cunay jirkeeda oo maaragtay jirkeeda isbedelay ayaa la sheegay. oo wiilkan shaqo ku lahayn una gabadhoodana la baxsan, aanu shaqana ku lahayn, islahaa badbaadi. markuu islahaa gabadhan badbaadi, nabar madaxa kaga dhacay isaga oo saas u ku dhintay. gabadhana waxaa la sheegay inay midi dhabarka laga geliyey